Oohinta galmada waa macaan. Bilowga galmada ama raaxada had iyo jeer waa macaan, laakiin waxaa ka sii macaan xilliga oohinta galmada, gaar ahaan xilliyadan soo socdo. Oohinta galmada noocaan ah ragga waa jecel yihiin. Rag fara badan ayaa xilliyadan aad u jecel, waxa ayna u samaysaa dareen lama ilaabaan ah iyo raaxo aad u macaan. Laakiin maxay kugu taalaa, dumarka qaar maba fahansano macaankaas. Waxa aysan aqoon u lahayn in raggu ay jecel yihiin marka ay dumarka sameeyaan saddexdan waxyaabood uu fiidiyowgeena ku saabsan tahay. Raaxada dumarka waa macaan, khaasatan xilliga oohinta galmada. In ay raaxada dumarka macaan tahay waxaa og qof walba, laakiin waa kala macaan tahay. Xilliyada ay oohinta galmada bilaabanayso ma jirto wax ay raggu la meel dhigi karaan, waase hadday xaas ku dareen samayso. Maxaa sabab u ah oohinta galmada? Waa sidee oohinta galmada dumarka? Oohinta galmada, khaasatan xilliga qaylada ay lamaanuhu sameynayaan, ayaa ah mararka qaar mid waali ah oo macaan ah. Markay marayso waan soo dhowahay, sii wad, biliis ha joojin. Marka ay gabadhu ay ku soo degaan jinniyada oo ay bilowdo xagxagasho, qaniinyo, ninkuna uu indhaha kor u taago una ekaado sida nin waashay oo kale. Waxaa jiro 3 waxyaabood oo sabab u ah oohinta galmada dumarka, gaar ahaan markay biyo baxayaan. Markuu malab yarowga ku dhex mirqo goortaan, dumarku waxa ay sameeyaan riin kaasoo ragga qaar waali ku rido. Dumarku waxa ay u qaybsamaan 3 xilliga galmada. Marka ay jugtu bilaabato, khaasatan jugta weyn, dumarku waxa ay kala sameeyaan dareemo noocaan ah. 1. Mid way qaylisaa. 2. Midna way taahdaa. 3. Mida kalena waa iska aamustaa. Waxaan shaki ku jirin in qaylada ama riinka aanan marnaba la qarin karin, maxaa yeelay waxa ay u yimaadaan si dabiici ah. Goormee timaadaa qaylada dumarka? Xaasku waa isdiyaarisay, soo qubaysatay, misena isa soo carfisay. Waxa ay ninkeeda u xiratay dharka khafiifka ah ee jirkeeda laga arkayo. Guriga waxa ay ka dhigtay mid udgoon oo caraf badan. Qolka jiifka waxa ay ku xirtay leerarka casaanka ah. Hadda waxa ay sugaysaa imaatinka ninkeeda. Waxa ay ninkeeda weydiisay halka uu ku sugan yahay, maxaa yeelay waxa ay asiga dartii u taagan tahay albaabka, iyadoo weliba dareenkeedu kacsan yahay. Waxa ay u dirtay erayo jacayl, gaar ahaan erayo jacayl ah oo kiciyo dareenka ragga. Ninku wuxuu yimid guriga isaga oo u riyaaqsan, xaaskuna waa ay ka furtay iyadoo ay ka dhabaysay ballanqaadkii ay u samaysay ninkeeda. Ismarxabayn kadib waxaa bilaabatay ciyaartii la wada sugayay. Halka ay dumarka raaxada ka helaan. Markuu malab yarowga afkiisa hore uu gaaro meesha loo yaqaano G-spot, halkaas oo ah meesha ay dumarku ay ka helaan raaxo aan caadi ahayn. Haddii aan tilmaam ka bixino, waxa ay ku taalaa dhakada sare ee xubinta dumarka, gaar ahaan qaybta gudaha ah. Ninku markuu meelahaasi ku xoqxoqo, dumarku raaxo uma dhinno. Waxa ay bilaabaan in ay ninku ku dhegaan oo ay cijiyeystaan. Haddii ay xaasku xilliyadaas ninka ku cijiyeysato, ha iska faham in ay hawada sare marayso. Mararka qaar haddii ninka guskiisa uu dheer yahay, waxaa dhacdo in malab yarowga uu gaaro madaxa labada ukunta ee u dhow ninka. Halkaas oo ay dumarku ka dareemaan xanuun sayd ah. Ha samayntaas haddaad ka mid tahay ragga leh guska dheer oo la soco dareenka xaaskaaga. Haddii aan nahay dumar, mararka qaar waxaan dareennaa xanuuno marka ay xubinteena taranka qalalan tahay. Tani waa qaladaadka ugu badan ee aan samayno marka aan wasmada iyo guurka ku cusubnahay. Sidee taasi looga gudbaa? Waxaa jirto jeel la isticmaalo oo xubinta taranka ka dhigayso mid qoyan, gabadhuna aysan dareemaynin wax xanuun ah. Ragga qaar waxa ay yaqaanaan in ay mariyaan saliid macsaro, laakiin waxaa ka qurux badan in la mariyo jeel loogu talagalay. Waxaan soo gelin doonaa sawirada jeelalka iyo noocyadooda kala duwan ee loo isticmaalo siilka qalalan. Fadlan sabskrayb iyo follow hanaga ilaawin. La soco casharada. Mahadsanid.